السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada Muumin Academy. Maanta casharkeenu waxa uu ku saabsan yahay sida la isugu aadiyo codadka iyo muuqaalada laba meelood lagu soo kala duubay. Dhibaatooyinka ka jira codka aad ay markaasi u badan yihiin. Haddaad computer isticmaalaysid iyo haddii aad camera isticmaalaysid, waad isticmaali kartaa laba meelood oo yacni qasab maaha inaad computer codkiisa isticmaashid ama camera codkeeda isticmaashid. Anigu hadda waxaan isticmaalaa mobilkeyga maadaama uu computerku cod nadiif ah oo wanaagsan aanu markaasi qabanahayn. Markaas sidee la isugu aadinayaa maadaama uu labada shay ama codka iyo muuqaalka lagu soo kala duubay laba meelood oo kala duwan. Markaynu soo galno softwarekeena aynu markaasi codadkii iyo markaasi muuqaaladii aynu si fiican isugu aadinanay. Markaynu joogno qaybta editingka waxaanu kasii dooranaa halkii markaasi aynu kasoo gelinaanay muuqaalkeena waxaanu leenahay double click ayanu leenahay. Kadib halkan markaynu keeno waxaad kasii dooranaysaa meesha markaasi codkaaga iyo markaasi videogaaga markaasi aad isku aadinaysay halka ay ku yaalaan. Aniga markaa waxay yeelaan qaybta desktopka, marka adiga ayaa garanaya. Qaybta desktopka markaan soo imaado folderkan ay igu jiraan ay ku qoran tahay synchronize. Okay, markaan saasi u soo galo codkii waa kan. Markaan labadiiba aan markaasi soo geliyo kadibna open ayaan leeyahay. Markuu qaybtan imaado qaybtan waxaa leedahay project video ayaan kaga soo hadalay interface-ka software-kan. Haddii aanad baran soo baro oo markaasi soo daawo insha Allah taala way ku anfici doonaan wax badanna waad iska bedeli doontaa insha Allah. Marka codkeeni waa kan, markaasi muuqaalkeenina waa kan. Markaan muuqaalka double click idhaahdo waxa uu iman doonaa qaybtan. Haddii aan markaasi muuqaalka soo qaado oo keeno qaybta timeline-ka markaan saasi aan u keeno bal waxoogaa aynu dhageysano markaasi codkeena iyo markaasi iyo videogeeni iyo muuqaalkeena wada socda aan dhageysano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibayaal soo dhawaada mar kale magacaygu waa Axmed halkan waa Muumin Academy. Marka codka ayaan rabaa, codka waa kan hoose. Waxaan rabaa inaan iska delete gareeyo oo markaasi codka nadiifta ah ee mobilkeyga aan ku duubay inaan saaro. So markaa maxaan sameynayaa? Codka ayaan leeyahay double click baan haddana codka leeyahay. Codka markaan double click saaro idhaahdo codki waa kan. Halkaas markaasi ay ku qoran tahay markaan halkaas u tago cursor-ku isbedelo drag audio only ayaan soo qaadayaa markaasi codkii waxaan keenayaa qaybta timeline-ka. Markaan qaybta timeline-ka saas aan u keeno bal aan markaasi aan wada dhageysano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibayaal soo dhawaada mar kale magacaygu waa Axmed halkan waa Assalaamu calaykum waraxmatullaahi Muumin Academy computer science waxaan kaga hadalnaa casharada taxanaha kuwaas oo baranaysa labada software kala Adobe Photoshop iyo markaan labadii cod way isku hoos jiraan waxoogaa kanaan computerka ku duubo naaqus kanaan markaasi hoose aan kusoo duubay mobilkeygana waa cod markaasi fasiix ah oo la wada maqli karo. Markaas sidee ayaan u sameynayaa markaasi synchronize-ka ama codkii computerka sidee ayaan u leekaysiinayaa markaasi codkii kale aan markaasi kusoo duubay mobilkeyga. Waxaan leeyahay labadaba waan select gareynayaa. Markaan saasi aan labadaba saddexdaba aan u doorto waxaan leeyahay right click baan leeyahay kadibna waxaan leeyahay meesha ay ku qoran tahay synchronize. Markaan saasi u dhaahdo halkan waxaad iska hubisaa inay ku dooran tahay audio kadibna waxaad leedahay okay. Waxoogaa processing ayuu sameynayaa oo wuxuu soo akhriyaa codkaagii markaa uu isku aadinayaa meelihii markaasi codadka ee isla. Haddeerto waa isku aadiyey. Haddii aynu markaasi saan idhaahno haddii aynu qaybtan oo kale aynu sidaa u yareyno waxaad aragtaan in codkeenii kale dib loo dhigay. Marka waxa uu ku aadinayaa codkan computerkan kusoo duubnay iyo codkan ayuu isku aadinayaa oo kan ayaa markaasi uu dib u dhigay. Marka waxaanu rabnaa inaynu iska delete gareyno codkan computerka aynu kusoo duubnay. Select ayaan ka qaadanaa. Saas ayaan markaasi aan u dooranaa muuqaalkeeni iyo codkeeni wada socda. Imanka unlink ayaan deetana leenahay. Unlink markaan idhaahno codkii iyo markaasi codkii waa midkan markaasi videogina waa midkan. Codka markaa computerka ayaan dooranaa kadibna waxaan leenahay delete markaan idhaahno
labadan ayaan isku select garaynaa kadibna waxaan leenahay right click ayaan leenahay kadibna waxaan leenahay link markaan idhaahno marka labadani way wada socdaan mid markaanu doorano ka kalena waaw select garaysmaya marka waxaanu ka jaraynaa intan ayanu ka jaraynaa halka uu codku ka bilaabmayo waa meelaha markaasi buraha oo kale waa meelihii codkaygu uu ka bilaabmayay ayaan hadlayay marka halkaas ayaan ka bilaabayaa waxaan ku noqonayaa selection toolka kadibna labadoodaba waxaan leeyahay right click markaan leeyahay idhaahdo clear ayaan odhanayaa ama waxaan leeyahay waan dooranayaa kadibna waxaan leeyahay delete markaan idhaahdo halkan ayaan markaasi aan haddana ku dhufanayaa kadibna waxaan leeyahay rebel delete hadaba aan dhegeysano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal soo dhawaada mar kale magacaygu waa Axmed Daahir halkanina waa Muumin Academy and Computer Science. Muumin Academy and Computer Science waxaanu kaga hadalnaa casharro taxanaha kuwa intaas ayaan kusoo koobayaa markaas muuqaalkii aan rabay inaan idinku baro codka iyo muuqaalka laba meelood lagu soo kala duubay sida markaasi la isugu aadiyo. dad ku cusub tahay channelka subscribe nagu soo biir qaybta commenting nagu reeb wixii markaasi su'aala ee ka dhex guuxaya insha Allah ta'ala waxaan kugu soo jawaabi doonaa sida ugu dhaqsaha badan. Thanks for watching the video. Please subscribe the channel and like the video. Also, if there is any question for us, please leave it us on the comment.